Gudoomiyaha gobolka Sool Abdi qani maxamuud Jiidhe ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha samafalka inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan ugu yaraan Boqol Kun oo qoys oo uu tilmaamay inay u baahan yihiin kaalmo aadinnim. dadkaasi ayaa ku barakacay colaado iyo abaaro ku soo laalaabtay guud ahaan gobolkan Sool. dadka ugu badan ayaa ku barakacay koonfurta gobolka Sool kuwaas oo aan wali ku noqon deegaanadii ay ka barakaceen walow heshiis nabadeed laga gaaray colaadaasi dadkaasi ku barakaceen. abaaraha jira ayuu sheegay inay xaaladda uga sii dareen waxaana uu tilmaamay in biyo la'aantu gaadhay meeshii ugu sareysay. deegaanada qaarkii ayuu sheegay in ilihii biyuhu ka imaan jiray ay gureen ceelasha qaarkiina ay ciladoobeen loona baahan yahay in dadkaasi gurmad aadinnim lala soo gaadho oo isugu jira raashin iyo biyo dhaamin degdeg ah. waxaan u booqanay oo iyadana socod ay ku jirtay shaqooyinkii aan qabanay bisha deegaanada hoos yimaada gobolkan deegaanadii colaadu ay aafeeyeen dhagxan iskuro oo ahayd meel lagu soo qaxay dhumay oo ahayd meesha dhibaatada badneed ka dhacday iyo kala beed runtii dhumay waxaanu halka kula kulanay odayaashii iyo deegaankaas runtii ciidamadii meesha jooga waa laga qaaday wadooyinkii waa la furay isdhexgalkii bulshada iyo xoolihii iyo daaqsinkii uu isu furmay. dhinaca kale ciidamadii beelaha meesha ku dagaalamay waxay soo galeen gacanta ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ku soo biireen iyagoo ku si kalsooni leh oo aan khasab ahayn ay ciidamada qaranka uga mid noqdeen. waxaan imika ku jiraan gacanta dawladda runtii waa uga mahad celinaya cid hawsha nabadgelyada iyo in horumar laga gaar nabadgelyada nagala shaqeysay beelihii walaalaha ay halka ku dirirtu ku dhaxmartay iyo dhibaatooyinka soo kala gaadhana inay wax alaale wixii dhacay ay xalidheele ka noqdaan iyagana uga mahad celinaya odayaasha ka shaqeeyay annagana waxaan la ka rabay fulintii inaan wax alaale wixii heshiisadii dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya lagu soo galay inaan fulino. runtii intii ugu horeysay waan fulinay duugtii sidii marxaatiga saxaafadda ka ahayd waanu kala guddoonsinay furkii waa la kala qaatay wadooyinka waa la furay ciidamadiina waa la kala qaaday qolo walbana meeshii loo qorsheeyay qolana adcad ayaan geynay qolana waxaan geynay meesha la yiraahdo gambare. maanta deegaankii lagu dagaalamay gaari tiknika aan ma jiro oo maleeshiya beelad wato waxaana amniga gacanta ku haya ciidamada qaranka hay'adaha caalamka dawladda iyo cid allaale cidii humanitarian waxaan ka codsanayaa dadkaas gurihii waa ka burbureen waa meel lagu dagaalamay dhibaatooyin badan oo ka hor imaanaysa in deegaanadii dib lagu noqdo gurihii la degay baa jira inkastoo ay soo furantay oo la soconayo oo more population dadkaasi waxa la oran karaa gabi ahaantoodba dadkii deegaanada ku nool way barakaceen. tusaale ahaan magaalada Dharkeyn la yiraahdo waa lagu barakacay cid kuma hadhin magaalada Turkasangas la yiraahdo waa lagu barakacay magaalada Dhumay la yiraahdo waa lagu barakacay iyadoo meeshii dhibaatada ugu badan ka dhacday magaalada Dibatagle waa lagu barakacay deegaanada hoos yimaada daaqsinka ana dhamaantood waa lagu barakacay. dadkaasi way xaroodeen waana population-ka dhamaa waa dad runtii aad u fara badan oo qiyaas ahaan marka la qiyaaso tira badan oo dadkii deegaanada afarta magaalo dadkii deegaanada iyo tuulooyinka hoos imaan jiray iyo reer miyiga hoos imaan jiray oo laftaminta ay tira leeg yihiin way barakaceen. والله dadkaas ilaa Boqol Kun oo qoys way gaarayaan dadkaas halka ku barakacay ha kala duwanaadeen laakiin marka la isku wadaro ilaa Boqol Kun oo qoys waa dad gaaraya inta deegaanka yar ku barakacday inta kale ee deegaanada u dhawaa sida kala beero kale hargeygo kale dhagxan iskuro kale tuulooyinkaas hoos yimaada degmada kala beero kale faraha badan inta iyaguna dhibaatooyinka soo gaadhay marka laga saar inta gaarka ay dhibaatooyinka ku qabsadeen dad outro badan way oo qoys outro badan tuulooyinka deganaa wallahi marka xaqiiqda loo horto biyo ma haystaan dadkaasi xaalad guud oo abaareed oo ay duruuf ay gobolka soo la qabaan baa jira duruuftaas waxa weeye xaaladda abaarta ay maanta taagan wax biyo ma haystaan wax cuntaan ma haystaan marka laga reebo gargaarka hay'adaha bini'aadanka ay u geystaan oo ay u geeyaan mooy laakiin maxaa yeelay xoolihii hore abaarta uga qaaday iyagoo abaarihii xoolihii ay ka qaadeen haddana waxa ugu darsamay colaadii oo runtii ay barakac ballaaran baahsan ay soo gaareen deegaanka ay iska birin ka horta dhawaan waxaan booqanay iyadana magaalada Tukaraq runtii Tukaraq wad la socotaan xaaladeeda xaalad international bay mar noqotay meeshaas oo ay mar dagaal ka dhaceen oo qoladan Soomaaliya aan jaarkanahay ayna soo weerartay oo dhibaatooyin badan halka ka dhaceen marka
magaaladaas markaan booqanay runtii dadku way deganaansho fiican baa ka muuqatay nabadgelyadu waa soo noqotay ganacsigu soo noqday laakiin iyagana xaalad bini'aadamku waxyaabay anaga codsadeen raadku raqadna ugu soo ballan qaadnay waxna waa ka fulinayna deegaanada nugaasha imka taleexo kale iyo dhulkaas kale abaaro runtii soo noqnoqday oo muddo dheer ka jiray baa jira biyo la'aantu ceelashii waa guna hadeer waddo kale ceelka la yiraahdo waxaa naloo sheegay maalintaan tukaraqdaqnay booqanay odaashii deegaanka waxay noo sheegeen gabi ahaanba ceelkaas dad ka cabi jireen in meelihii laga geli jiray ay tuubooyin ku go'an yihiin aanu shaqaynayn marka mar kastoo abaartu dhacdo ceelasha xitaa nugaashu way guraan oo sidii hore biyaha looga cabi jiray loogama cabo daaqsinkuna wuu yaraadaa abaartaas ka dhacday nugaal waxay sababtay in dadkii gobolada andariskan haysay Puntland kale ay soo guuraan oo ay dhinacan galbeedka ilaa Buuhoodle ilaa Wuruur ilaa wixii la halmaala ay gaareen deegaamadii ayna dhaafeen oo baqan hay'adaha u diray waxa weeye runtii inay maanta arrinta taagan gobolka Sool ay casaankii ku dhowdahay marka inaysan eegasho damba lahayn degdeg hay'adaha caalamka UN ha noqoto international ha noqoto kuwa islaamiga ha noqdeen inay degdeg dadkaas ula soo gaaraan gargaar degdega xilli abaareed oo adag baa la galay xilli biyo la'aaneed baa la galay baad xumaa la galay hayaan fara badan oo dhacay oo geedigu dadka u dheeriyay guud ahaan gobolka Sool waxaa ka soo baxaya qeyladaan baaxad weyn oo dhanka abaaraha ah waxaana dadka xoolo dhaqatada iyo dadkii ku barakacay abaaraha iyo colaadaha guud ahaan gobolka jira ay codsanayaan in la soo caawiyo Faarax Maxamuud Dubad goob joog laas aanood